هذا برضو مع تنتهي والله مركب هره ميان هذا سهل وجمع العلمية مركب بارهان لاشيء ودوحي انت تجد كلام ما يصير بجمع برم احنا محمد سويت لو هوشا كدعday waa jirtaa qaabka aragidii waa ciidamada nabadgeedkan gabadha Somaliland fakirka soo weeraray ciidanka difaaca dowladda Puntland xadigoodu yahay Galbeed way iska difaaceen dad fiican baa kaga dhacay khasaarada waa muuqdi waan gartay mar haddii marka ay soo weerareen halkaasi aad sheegtay bal waxaad ka warbixisaa sida wax u dhaceen markaa wallahi sanow way soo weerareen ciidanka way soo weerareen ciidankuna fariisinkiisii buu joogay wayna iska difaaceen khasaarada way u geysteen ciidanka difaaca dowladda Puntland laba askari baa kaga dhintay hawshaas weerarkaas wayna iska difaaceen fariisinkooda ay joogaan ciidankaa soo barbaraysay nabadgeedka waa aad bay isaga difaaceen khasaarada way u geysteen kolley intaan ognahay oo la xaqiijiyey kan dhimashaa waanu ognahay xaggooda iyo 7 dhaawac waxaan ugu maqaalaa inuusan dagaal ka dhicin deegaanka kaliya deegaamo kale miyaa jiro dagaal ka dhacay saaka ay deegaanka uu ka dhacay saaka wax kale ka dhacay ma jiraan waa ciidankaas diidda hore soo weerareen hadda nabadgeedka soo weerartay sabkaana way kala kulmeen iyagoo weliba si gaadma maxaan ku yidhahdaa u soo weeraray arooryadii hore weerar fulinimo ku soo qaaday intaa kadibna jawaabtoodii way ka heleen ciidanka difaaca dowladda Puntland waa gartay waxaan ugu maqaalaa in xilligaas la soo weerarayay xirada ciidamada ay joogeen 5 ilaa 6 tikniko oo kaliya ciidamadii halkaas hore u joogeen ay tababar uga socdo magaalada Baran ciidamo kalena aan la geyn sida la ligeen Soomaaliya halkaas fursad ay ka heshay waxba kala jiraan ciidankii difaaca lagu talagalay difaaciisa ku jira ciidanka tababarka lagu talagalay ee harada lagu hareeyana tababarkiisa waa socdaa marka waa laba option oo waxba iska jirin difaacu sidii uu yaala ciidan ku filan oo difaaciisa ku filan baa jiida fadhiya difaaca dalkiisa iyo dalkiisa ku filan waxaa muqaanti ka waxyaabaha maxaan ku yidhahdaa saaka kala kulmay sababdii soo weerartay maxaan ku yidhahdaa barbarada kusoo weerartay taasaa markhaanti u ah fariisinkoodii bay joogeen waana iska difaaceen aad iyo aad bayna insha allah maxaan ku yidhahdaa ugu diyaarsan yihiin waa gartay gudoomiye waxa kale oo wararku sheegayaan in markii ciidamada Soomaaliland ay soo weerareen xeradaasi ciidamadii joogay xerada Puntland ay isaga baxeen halkaasna ay qabsatay ciidamada Soomaaliland kadibna iyagu ay ka baxeen oo Puntland ku soo laabatay waxba kama jiraan waa wararka beenaabuurka ay kamid tahay ciidankaas fariisinkiisii buu joogaa markii horena lagu soo weeraray oo difaaca ka harteen haddana ay ku sugan yihiin waan gartay bal dhaawaca xaggiisa ka waran ma hadda dhimashadii laba ku sheegtay hal askari maxaan ku yidhahdaa dhaawac fudud abaa waan gartay bal waxaa hadda ka warantaa xaaladda iyo jawiga hadda suu yahay jawigu waxba lagama xumo ciidanku maxaan ku yidhahdaa fariisimadiisa buu joogaa difaaciisa waa u diyaar cid kasta oo soo barbaraysataba diyaar baa loo yahay inay jawaabtooda helaan insha allah meelahoodii ay kasoo duureen barbarada kaga yimaadeen bay maxaan ku yidhahdaa ku sugan yihiin oo niyadkiiyo ku aasanaya waan gartay war ka soo baxay dhanka Soomaaliland wuxuu sheegayaa in weerarka saaka aroornimadii ay qaadeen ciidamo ka tirsan Puntland warka iyaga maxaa ka jira waxba kama jiraan arrinkaas waa arrinkaas uu cad yahay in ciidanka difaaca dowladda Puntland fariisinkiisii loogu yimi weerar
gardarra uu ahaa oo cad waa arrin cad arrinkaasu arrin maxaan ku yidhahdaa la been karo maaha arrin cad weeye waayo ciddii soo doonan kara jawaabteeda way ka heshay